bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan joogaa shirkadda lagu bacrimiyo iniinayaha ubaxa. Shirkaddaas oo la dhaho magaceeda Hill Park Nurseries waxaa ka baxyo ubaxyo fara badan sida aad u jeedaan buuggaan ay leeyihiin. Waxayna ii sheegeen iminka in geedkan flowerkan uu yahay flowerka ugu carf badan ee hadda gacanta ugu jiro oo la dhaho chandler. Sida u jeedaan beerta aaday u weyn tahay. Haddaan dhex galo beerta way ii fasaxeen inaan dhex galo beerta oo aan ka duubo cajal. Marka saa u jeedaan beerta waatana waxaa lagu bacrimiyaa oo lagu abuuraa flowerka midkiisa la yiraahdo roseska weli. Sida u jeedaan roseska noocyo fara badan uu leeyahay, kuwa kalaro kala gedisan leh, kuwa caraf leh, marka noocyo fara badan ay leeyihiin. Saa u jeedaan waa kana marka beerta aan ku dhex jiraa maanta aan soo booqday. Ganacsiga Soomaaliya laga sameyn karo ee dhinaca beeraha ah iyo geedaha iyo dhirta waxaa ka mid ah sida ganacsigan oo kale. sida u jeedaan waa fioreyaal. Marka waxaa la ii sheegay geedahan oo idil in asalkooda laga sameeyey miro. mirihii markay soo qaateen dhulkay ku abuureen, geedihii way soo baxeen. Markay soo baxaan geedaha madaxa laga goonayaa, markaas baa waxaa lagu talaalayaa geedo noocyo la kasaayo sida geedkan oo kale. ubaxaas oo weynka ah oo chandler oo laga sameyn karo cataro. Waxay kaloo ii sheegeen in ma aragti dadka u shaqeeya ay ka keensadaan Kenya oo ma aragti experience badan ku leh. Marka Soomaaliya waxay haysataa jaanis fara badan in ay abuurto ubaxaas oo lagu iibini karo wadamada isticmaalo ubaxa. waa shaqo ka mid ah shaqooyinka beeraha la xiriiro in qof walba ubax uu beeri karo beertiisa, ka bacdi ubaxa uu u diri karo dibadda. sida u jeedaan beertan weynaanta badan wax kale laguma beero, waxaa lagu beeraa ubax. ma lagu beero masago iyo bariis iyo tufaax iyo waxaas laguma beero, waxaa lagu beeraa bas waa ubax oo noocyo kala gedisan iska leh. saa u jeedaan calankii Britain-na waa kaas. marka waxaan u soo gudbinayaa beeralayda Soomaaliyeed in ay jiraan dalagyo kale oo la beeri karo dalka oona dibadda ka joogo qiimo macquul ah oo fiican. marka meeshaan waa u soo laabanayaa mar labaad markii ay fioreyaasha si fiican u soo baxaan. haddeer waxaanu ku jirnaa bisha December, laakiin bisha April to May waxa waaye waqtiga ugu fiican oo wax ay soo baxaan fioreyaasha oo dhulkana uu yahay cagaar oona qabow uusan ahayn. marka sida loo qurxiyo meesha maasha Allah tabaaraka Allah. ilaahay gaaladan waxooda haddii qeyr ugu jirto ilaahay u barakeeyo. annakana Soomaalida haddaan nahnay ilaahay waxayna ha inoo barakeeyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.